ومناسبة بلارن وسيهر سرال لوسو أقاسيمي وهي جامعة ألفا فرعيدة مقالة برعو أيو قبطي دفعة دي أفراد كبحدي جامعة داني دفعة دانو ككوبان لبا بقول إيا كوتن هاردي أو براتي كلية كلا دواناي بحسو جامعة ألفا waxaana maanta munaasabadani kala soo qayb galay xubno wasiir ah oo ka socday xukuumadda Soomaaliland mas'uuliyiinta saddex xisbi qaran maamulka gobolka Togdheer ka degmada Marti Sharaf iyo waalidiinta dhashay ardaydan qalin jabisay ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Alfa Professor Abdurrahman Maal iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Alfa farceeda magaalada Burco Professor Abdiqani Ibrahim Xasan waxayna si qoto dheer uga warrameen taariikhda waxbarasho iyo marxaladii ay soo martay jaamacadda Alfa waxayna hambalyo iyo bogaadin ay u direen ardayda maanta ka baxday jaamacadda Alfa runtii maanta waa farxad in nagala soo qayb gashaan xalfadda dafcadii afraad ee jaamacadda Alfa University farceeda magaalada Burco oo ay ka baxayaan 250 arday oo isugu jira kulliyadaha caafimaadka kulliyadaha social science-ka kulliyadaha business-ka kulliyadaha ICT-ga ardaydaas oo runtii ka kooban ardayda jaamacadda Alfa University ee Burco ardayda aynaba iyo ardayda Sheekh runtii ardaydan maanta waxay tahay farxadoodii waana runtii in laga qaybsado dhammaantiina aad baa u mahadsantihiin dhammaan ardayda halkan ka baxaysa jaamacadda Alfa University waa arday buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa ay ku qalin jebinayeen isla markaasna ay diyaar u yihiin maanta inay u shaqeeyaan dalkooda iyo dadkooda runtii jaamacadda Alfa waxay u taagan tahay mar kastaba inay kor u qaado aqoonta gobolada bariga gaar ahaan gobolka Togdheer iyadoo sidoo kale jaamacaddu gacan qabata ardayda dayarka fiiga iska bixin waayay iyo ardayda runtii ku nool gobolada kala duwan gudoomiyaha jaamacadda Alfa farceeda Burco u soo gudbiyay ragta guud ee jaamacadda Alfa markii aan ku qancay warbixinta natiijadii qalin jabinta ee uu soo gudbiyay madaxa akademiga guud ee jaamacadda Alfa markii aan arkay sharciga jaamacadda Alfa cutubkiisa 5aad qodobkiisa 8aad lambarkiisa 3aad ee shuruucda qalin jabinta waxaan halkan ka cadeynayaa in ardayda halkan maanta fadhiga ay buuxiyeen dhammaanba shuruudihii qalin jabinta ee shahaadada digriga koowaad saacada laga bilaabana ay ka mid yihiin aqoonyahanka Soomaaliland wasiirada wasaaradda xiriirka golayaasha iyo shaqada iyo arrimaha bulshada agaasimaha tacliinta sare Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga UCID iyo mas'uuliyiin kale ayaa dhammaantood hambalyo u diray ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Alfa farceeda magaalada Burco waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa una hambalyeenayaa una ducaynayaa dhalinyarada caruurteena qiimaha badan ee muddada dheer u soo dhabar adeegay inay maanta halkan soo gaadhaan iyagana waxaan leeyahay cilmiga barateen Ilaahay ha idinku faco ha idinku anfaco hambaliyo baan leeyahay waxaan aad uga mahad celinayaa gudoomiyaha Burco iyo iyo macallimiinta iyo mas'uuliyiinta xaqiijiyay aqoonta iyo cilmiga iyo isku halaynta ee waxtar kale ee qarankana waa xule jaamacaddana waa xule gobolkana waa xutarka waa waxaan leeyahay hambaliyo waxaan idinkula dardaarmayaa inaad noqotaan kuwa dalkooda ku niyad samaada ee cilmigii ay barteen iyo dadaalkii waalidku geliyay intaba ka midho dhaliya ee ku samra cilmigu isaga wax alifa waxaan si gaar ah u maamuusayaa oo u mahad celinayaa madaxweynaha jaamacadda Alfa oo suuro geliyay inuu xakamaha ka furo ama uu dabarka ka jaro in ay noqoto jaamacadda Alfa jaamacad ballaaran dhammaan ardayda qalin jabisay maanta waxaan leeyahay hambaliyo waxaan kana hambaliyeenayaa macallimiinta iyo maamulka jaamacaddan Alfa waxaan si gaar ah u hambaliyeenayaa hooyooyinka alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaanu la farxaynaa ardaydan 250 arday
waa guul u soo hoyatay qarankan Somaliland waa guul u soo hoyatay guud ahaanba ummadan oo ay ku soo biireen 250 arday jaamacadda alfa runtii waa saaxiibka bulshada reer Togdheer ee waliba danyarta ah aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Axmed Maxamuud Ibraahim Boqorre wararka CBA TV Burco hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom